fiidkii ayay maxamed xasan ayaan loo ahayd markii magaalyahano ka tirsan al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen magaalo xeebeedka marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay xarakada al-shabaab weerareen fariisimo laba fariisimood oo duleedka magaalada marko ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee halkaasi degan ciidamada ayaa weerarada goobaha lagu qaaday waxay kala yihiin xaafadda Obasiibo iyo xaafadda kale ee la yiraahdo Buulabacaad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo ku siman 3 daqiiqo ka soconayay oo labada dhinac dhexmaray ugu dambeynna ciidamada guutada 14 Oktoobar ee ku sugan degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose maxamed xasan ayaan loo waxa uu soo gashay in ay iska caabiyaan al-shabaab soo weeraray hay'ado kala duwan aan la sameeyay dadka deegaanka ee magaalada Marko waxay ii sheegeen in dhawqa rasaasta si weyn xalay Marko isku qabsatay dad shacab wax gaarinay ilaa iminka anagu ma aynu maqal asa aatee saraakiisha ciidamada ee ku sugan Marko aan la xiriiray waxay ii sheegeen in weerarka xoogan ee al-shabaab ku yimid ay ciidamada kaga hortageen si xirfadaysan ayna iska caabiyeen maadaama ciidamadu ay sheegeen in al-shabaab soo weeraray Marko ay ahaayeen dad aad u fara badan kuwaas oo doonay inay qabsadaan Marko waxaana sidoo kale maxamed xasan ayaan loo weerarka Marko ee xarakada al-shabaab xalay uu ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor Marko uu booqday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo uu hogaaminayay saacado kadib ay markaa weerarkaas ayuu dhacay waxaana saakay oo aan la xiriiray dadka deegaanka qaar magaalada Marko ay sheegeen in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar iyo ciidamada booliis oo ku sugan Marko ay wadaan howlgallo balaaran oo ay ka sameynayaan xaafadaha kala gedisan magaalo xeebeedka Marko saraakiisha qaar la xiriirna waxa ay sheegeen in howlgalka uu iminka uu socdo markii uu soo ilaawdana ay saxaafadda la wadaagi doonaan runtii mas'uuliyiinta qaar ee maamulka degmada Marko waxay sheegeen in wax yar oo aan waxba ahayn uu ahaa weerarka al-shabaab kaga yimid balse xaqiiqdu waxay tahay in dagaalka in muddo halkaas uu ka socday labada dhinacna aysan waxba iskula harin inkastoo khasaaraha nasiib wanaag uu ilaa iminka lasoo sheegayo uusan sida u buurneen hase ahaatee xaafadaha ciidamada lagu soo weeraray ayaa kala ah xaafadda la yiraahdo Obasiibo iyo xaafadda kale ee Buulabacaad ee magaalada xeebeedka Marko oo ku taala dhanka duleedka halkaas oo fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin ciidamada dawladda gaar ahaan guutada 14 Oktoobar waxaana weerarkan uu noqonayaa uu ka mid noqonayaa weerarada inta badan al-shabaab ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo maalmihii dambe ahaa kuwa si aad u sii kordhiyay waxaana xusid mudan maxamed xasan ayaan loo in shalay gelinkii dambe taliyaha ciidanka lugta Cabdixamiid Maxamed Dirir uu booqasho ku yimid furimaha hore ee dagaalka halkaas oo ku hadlay ciidamada furinta ku jira kuwaas oo lagu sheegay inuu dhiirigelin ahaan ugu tagay maadaama ay soo kordheen weerarada al-shabaab markana waxay qayb ka tahay weerarka lagu qaaday waxa uu qayb ka yahay weerarada al-shabaab ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose degmooyinkiisa iyo deegaanadiisa maalin ka horna waa sida aan ku sheegay maxamed xasan ayaan halkaas waxaa booqday madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminayay oo si heersare loogu soo dhaweeyay hase ahaatee saacado kadib xarakada al-shabaab ayaa isku dayday in Marko ay la wareegaan inkastoo ciidamada halkaas ku sugan ay si aad dagaal u dhexmaray